habeennimadii xalay waxa uu dil argagax leh ka dhacay degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir. Burcad hubaysan ayaa toogatay mas'uul hore xiro laga soo qabtay qaar ka mid ah deegaanada Soomaalidu ay degto. Waxa uu soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii hore Lafoole, waxaana lagu hordilay gurigiisa ku yaalay degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Mukhtaar Nuur Geesi, gudoomiye ku-xigeenkii hore deegaanka Lafoole, ayaa waxaa xalay fiidkii ku weeraray gurigiisa dhalinyaro hubaysan kaasoo ku yaalay xaafadda Foorilow ee ka tirsan degmada Dharkeenle. waxa ayna ku hordileen gurigiisa. Dableydaas ayaa la sheegay inay wateen mooto, iyagoona dilka kadib ku baxsaday mootadii ay ku yimaadeen. ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga ee gobolka Banaadir kaasoo ku aadan dilkan loo geystay marxuum Nuur Geesi. dhanka kale ma jirto cid qaadatay mas'uuliyadda dilkaasi. Allah u naxariistee marxuum Mukhtaar Nuur Geesi ayaa dadka aqoonta dheeraadka u leh waxay sheegeen inuu ahaa nin furfuran oo bulshaawi ah, isla markaana hoygiisa lagu soo hirto. ma ahan markii ugu horeysay ee gurigiisa lagu hordilo mas'uul dowladda xilal ka soo qabtay ama deegaanada ay Soomaalidu degto. hore ayay u dhacday in dilal kala duwan loo geysto nabadoono iyo mas'uuliyiin kala duwan. ehelada marxuumka ayaa codsaday in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo sida uu u dhacay dilkan iyo ciddii ka dambeysaba. Maxamed Eekey, Danan TV, Muqdisho. ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka Yurub, xawaalada Galaxy Transfer waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha lagu diro Premier Wallet iyadoo ku gaaraysa daqiiqado gudahood. ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir Premier Wallet ehelkaaga iyo dadka jecesha.